waxaa si xawli leh dunida ugu faafaya fayraska dhaliya xanuunka furuqa daayeerka gaar ahaan wadamada Yurub, qaaradda Ameerika iyo jasiiradaha fog. Mashaqadan ayaa hadda gaartay heer ay ka qaylo dhaabso hay'adda caafimaadka adduunka oo ka digtay ahmiyadda xaaladda degdega ee kusoo korortay caalamka. Dhacdadan ayaa muujinaysa walaaca soo taraya dunidu ay ka qabto faafitaanka fayraskan oo ilaa iyo hadda soo ritay dad kor u dhaafaya 3,500 oo qof, waxaana cudurka la sheegay inay qaadeen dad ka badan 16,000 oo qof, wuxuuna ku faafay in ka badan 74 dal caalamka. 5 qof ayaana la xaqiijiyay ilaa iyo imika inay u dhinteen furuqa daayeerka. Laanta caafimaadka adduunka ayaa xaqiijisay in ilaa iyo iminka 99% dadka cudurkan uu ku dhacay yihiin dadka qoomaluudka isku jinsiga isku taga. Inkastoo laanta caafimaadka adduunku ay ka digtay in la faquuqo dadkan khasifan, haddana arrinka la yaab kale ayaa noqotay in cudurkan uu ku dhex faafayo magaalooyinka waaweyn ay degan yihiin dadka isku jinsiga isku taga ee loo yaqaan LGBTQ, sida magaalooyinka waaweyn ee New York, Minnesota, San Francisco, Edmonton, Paris, London iyo Madrid. Calaamadaha lagu garto cudurkan haddii uu kugu dhaco ayaa la sheegay inaan la dareemin 3 asbuuc ee ugu horeysa markaas oo caabuqu soo shaabaxo, waxaana haleela qofka xumad iyo qandho daran, waxaana qofku dareema madax xanuun aad u culus, daariye, dekaan. 5 cisho kadib ayaa qofka waxaa haleela calaamado u eg jadeecada ama hablabaasta, waxaana barara qanjaha. Intaa kadib ayaa qofka waxaa kasoo daata furuuruc qaybo ka mid ah jirkiisa sida wejiga, gacmaha, lugaha, qaarka sare iyo qaarka hoose. waxaa kaloo finanka biyaha leh ay kasoo baxaan afka iyo xubnaha taranka oo barara, oo dabadeedna xanuun aad u badan keena. Nabaradan ayaa ku faafa jirka oo dhan, waxaana la sheegay in nabaradan ay dheecaan ay sii daayaan oo ay qarxaan, markaas kadibna nabaradu ay engegaan. Inkastoo cudurkan inta badan laga bogsado asbuucyo kadib, haddana waxaa dhici karta inuu qofka ku xumaado caabuqa sanbabada, maskaxda iyo weliba xitaa buuda indhaha uu gaaro. Mana jirto daawo khaas oo ilaa hadda lagu daaweeyo furuqa, waxaana mudan in qofku uu qaato tallaalka furuqa. Tallaalka furuqa ayaa la sheegay in 95% uu ka hortago fayraska dhaliya furuqa daayeerka. Lama oga ilaa iyo iminka in furuqa daayeerku ku faafi doono dunida oo dhan iyo inuu ku koobnaan doono dadka qoomaluudka. Inkastoo uu jiro tallaalo looga hortago furuqa sida tallaalka Ivanex ay samayso shirkadda Daanishka ee Bavaria Nordic, haddana waxaa laga cabsi qabaa in fayraska furuqa daayeerku uu isdhalan rogo u noqdo mid halis badan oo isagu loo maaro waayo sida HIV/AIDS maadaama galmada lagu kala qaado. waxaana muuqata HIV/AIDS cudurkii qarnigan kadib in daacuun kale lagu salidayo qoomaluudka. Dhakhaatiirta ayaana ku talinaysa si looga badbaado in la dhowrsoonaado oo macsida laga fogaado, inkastoo lagu kala qaadi karo taabashada iyo weliba neefta oo ay baarayaan dhakhaatiirtu in si dhib yar loogu kala qaadi karo.